madaxweynaha ayaa ahayd mid markaasi hambaliya oo ugu hambalyeynaya go'aanka ay gaadhay jabhaddu sida nabadgelyada ay markaasi uga dhaqaaqayso deegaanka iyada oo u danaynaysa ummadeeda waxa kale oo uu sheegay in dadaal adag loogu soo galay sidii nabadgelyadaasi looga madadhalin lahaa haddaba waa kan khudbadii madaxweynaha deegaanka dowladda Soomaalida oo halka idinka sii wadayno arrimuhu kaga hadlayay dadaalka loo galay sidii markaasi wadahadalka loola yeelan lahaa jabhadda midowga xoreynta ee Soomaali galbeed dowladda federaalku inuu deegaankeena dego dadaalka ay ku bixisay odayaasha iyo salaadiinta qaarkiina halkan joogto waad garanaysaan waxaan xusuustaa ra'iisul wasaaruhu inuu mataqaanaa codsi ay u geysteen salaadiinta deegaankeena oo yiraahdeen onolef annaga nabad ka keenayna ee idinku ma nagu taageeraysaan way joogaan hadda waa Suldaan Cabdiraxmaan Dulanay la jooga intaan ka arko waan la shirnay ra'iisul wasaaraha waan fadhiyaa markaa iyaguna dhowr iyo toban iyagoo way fadhiyeen maalinka markii ra'iisul wasaaraha ay la hadleen anigu waxaan idhi bal ilaahay intuu xoogaa ka naxiyo oo mu aqli saliima oo maanta ku soo dejiyo yaan ku idhi waaga qalbiga ka yidhi sida macnaha loo wada hadlay waaga si aad u wanaagsan yaa loo wada hadlay waa marka uu ra'iisul wasaaruhu go'aaminayo in deegaankeena dhinaca wadooyinka dhinaca korontada iyo laydhka inuu wax ka qabanayo uu ballan qaaday waliba waxaan ognahay buu ku yidhi way xusuustaan waxaan ognahay kuwa Addis Ababa jooga ee aragtida xun inay oran doonaan machinery lagu sameyn lahaa wadooyinka yaa la gubayaa oo xoog nabadida meesha ka dhaqdhaqaaqa marka tagi meena bay oran doonaan annana waxaan oran doonaa wili taga markay gubaan aan aragnay haddii la gubana ku kala keenayna saasay ahayd way markaa tifuri karaan sidii markaan ku tashanay laba qaybood baan u kala qaybanay qaar Yurub bay tagaan qaarna Mareykanka tagaan marka maxaa dhacday madaxdii oo la qaarkood gudaha ku jiraan qaarna dibadda joogeen si xun bay odayaashu la dhaqmeen si xun bay la dhaqmeen war kuwa naga daaya beeri qaatayaasha yaa la oran kuwa dabaqoodhiga yaa la oran odayaashii baa dabaqoodhi lagu yiri annagii baa dabaqoodhi lagu yiri waa sida hadda oday uu sheegay waa runtii Daawud Axmar hadii la yiraahdo la yaabi maayo sababta deninka aftirkiisa waa la garanayaa magacuna waa Daawud Maxamed Cali Axmar xagee ka soo galay marka abdina saas kale baa la dhihi kuwa kalena saan baa la dhihi marka isma galayso nabigeena calayhi salaatu wasalaam magaciisa adoo wata baa lagu dhihi Axmar wataay marka waxa weeye dabaqoodhina sidoo kale wanimakan maxay dabada ka raaban baa leeyahay waxa weeye abdi fadhi sheegi doon marka waxa weeye nin walba targa lagu dhajiyay wax kale la isku haystaa meesha ma jirtay waxa weeye hantida dawladda inay dhacaan oo laf maxay u jirtaa hadda aniga tiraadaan waxa u jirtaa wax kale ma waxa weeye koox Soomaaliya joogtay oo janada ah oo korneyl ah oo raba inay hantida dawladda ku noolaadaan weeye loo adeegayaal noqdo laakiin dawladdu waa maxay iyo mas'uuliyiinteedu waa maxay iyo shaqaaluhu waa maxay u taagan yihiin marka la yiraahdo waxay u taagan yihiin dadka inaan u adeegnaan mas'uuliyiin u nahay in loo adeega maaha loo adeegayaalna noqono maaha shirar badan baan ka qabanay deegaankeena inay loo adeegayaal yihiin oo dadka inay u adeegaan ay rabaan waxyaabaha ku garan karto waxa weeye oo nalaf xeerka ay dhoobatay ay soo saartay qodobkiisa 30aad bal fiiriya ilaha dakhliga ee jabhadda ku qoran in badan baa soo qaadnay ilaha dakhliga ee jabhadda dhowr qodob bay qorayaan in xubnaha laga ururiyo waa qodob taas waa caadi weeye taageerayaasha in laga ururiyo waa caadi weeye waxa ku jira sakada oo nalaf sakada ku baxdaa sideed sifood ee sakada ay ku baxday odayaashu way noo sheegeen iyo culimadu way noo sheegeen sheegayaan in dadka sakada ka qaataan ma yasma UWS salaf guliga dadka sakada qaadan laakiin iyagu ka qaataan xoolaha way ka urursadaan
dad sabool ah oo gaajaysan oo qoraxdu ay ku dhacayso oo wax u adeega aan jirin oo miyiga jooga oo xaggana laga soo geli dagaalka iyo xabaduna iyaga ay ku dhacayaan markay carruurta caanahooda iyo raashinkooda ka qaataan ma iyaga islaam mase aniga cabdiba ah annaga aan ka qaadanayn baa islaamadii soo maaha oo diinta islaamka raacnay laakiin nin dadkii dhacaya islaam maaha inuu sheegtana maaha min siyaasadda iyo mataqaanaa isku darayeen dowladnimada ummaddiina dhacayadda islaam maaha marka kuwa inay dadkeenu in la taageero ma ahaban yaan qabaa marka dadaallo fara badan oo dowladda federaalka ay la gashay odayaasheenna oo intay dibadda tageen ay ku gacan saydheen oo xushmayn waayeen oo karaamayn waayeen yaa dhacday waa nasiib darro waa taariikhaha aan xusuusana ayay ka mid tahay markaa ka bacdi dowladda federaalka iyo annagu waxaan go'aansanay in onalef aan ka dulqaadno shacabkeenna horumarkan aan u gogol xadno waxaynu samaynay xoog isku filan oo onalef ka tirtiri kara deegaankeenna oo new boolice waa la sameeyey 1999 ilaa 2000 markaan fiirino deegaankeenna onalef nidaamyadii hore ee deegaankeenna ka jiray maadaama ay la halgami waayeen kumanaan kun bay ahayn waa la tiro koobay xataa awood isku filan markaan samaynay awooddoodu hadda aad bay u wiiqantay marka fagaarahan waa fagaaro aad u ballaaran oo taariikhiya in fagaarahan oo kale reer walba hadday doonaan ay shakhsiyahaan iyo kooxahaan u samaystaan baan u baaqayaa ugu dambayn waxaan aad iyo aad u mahad celinayaa madaxda UWSLF ee go'aankan taariikhiga qaadatay ilaahayna uu waafajiyey yaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuwa gayigooda neceb geerida